arrimo saameyn xun kugu yeelan doona 10 sano ee soo fooda leh. 1 raacidda saaxiibada xun. qof walba dadku raacu la dhaqan noqdaa ha samaadaan ama ha xumaadaan qof walba oo aad saaxiib la noqotana ku tasho in aad dhaqan un kala hari doonto. 2 raaligelinta dadka kale. cidna yaanay kugu khalifin in aad daraadood wax aadan raali ka ahayn u samayso waxaad jeceshahay ee diinta iyo mabda'a aan ka hor imaanayn yeel ama sameey. 3 isdhiibidda marka uu dhibku kugu bato. dhibaatadu waxa ay dhistaa qofka kana yeeshaa qof khibrad u yeesha arrimaha kala duwan ee nolosha. haddaba marka ay caqabada ugu horeysa kula harto aadna isdhiibto wax walba oo aad dhib yar kala kulantaana waa ay kula hari doonaan. 4 ogolaanshiyaha wax aan ku qalmin. marka aad naxariis badan tahay ee aad qadarin awgeed arrimo badan uga indhasaabato ama aadan iska difaaci aqoon mararka qaar waxa aad ogolaataa wax ama dhaqan aan ku qalmin. haddaba maanta laga yaabee in aad wanaag samaysay balse berri ayaad dhibaato mudanaysaa waayo wax aad ku qanacsan tahay ma aha. 5 isdhaafinta iyo dib u dhigidda howlaha sida in aanay dhammaanayn ayaamaha kuu dhiman. daqiiqad walba oo ku seegtaa maalinta qiyaamaha alla waa uu ku weydiin doonaa meesha aad ku bixisay. adduunka inta aad saaran tahayna horumarka mise guusha aad gaari doonto ayaa dib u dhacaya. 6 xaasidnimada iyo isla weynida waa laba kala daran. qofkii ay u kulmaanna waxa uu noqdaa keligii socod ay dadku ka dheeraadaan adduun iyo aakhirana seega ugu dambeynna meel xun ku hagoogta. 7 caajiska iyo rajada beenta ah. caajisku dadka asaaga ah ayuu ka reebaa ismaawiilinta iyo rajada beenta ahna bilaa mustaqbal ayay ka dhigtaa. 8 u fasixidda dadka kale in ay ku go'aamiyaan mustaqbalkaaga waa faragelin aadan u baahnayn. sax tala ka qaado balse go'aanka ugu dambeeya ka yeelanin marxalad ka mid ah noloshaada. 9 inaad wax walba oo noloshaada ku saabsan aad kaliya samayso. far kaliya fool ma dhaqdo. haddaba waxaad u baahan tahay qof ku dhiirigeliya saaxiib iyo inaad ka mid tahay koox yoolasha qaar aad wada gaartaan. 10 inaad yeelan weydo xirfad ama wax hiwaayad ku ah. yeelashada xirfad ama hiwaayad aad ku dhex yeelato shaqadaada rasmiga ah waxa ay ka caawinaysaa arrimo badan oo ay ugu horeyso in aad dakhli gaar ah yeelato iyo inaad ku faraxsanaato ayaamaha aad nooshahay. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan like dheh sidoo kalena asxaabtaada kale u sheer garay.